Waxaa isa soo taraya khasaaraha dhimasho ee ka dhashay god weyn oo laga dhex qoday lagta xaafadda Kamoor ee magaalada Mandera. 2 toddobaad gudahood, waxaa tugan ku dhintay 3 qof oo ugu dambeeyay wiil 12 sano jir ah oo lagu magacaabo Suleymaan Cabdiwaaxid Cumar oo galabta ku dhintay. Shacabka degan agagaarka tugan ayaa cabasho ba'an ka muujiyay tugan sababay dhimashada dhalinyaro badan. meeshaan sidoo ninkii sheegay waaye wax ilaahay ogyahay masiibo ayaa ka dilaacday. waa qofkii saddexaad oo meeshaan ku dhacay. qofkii saddexaad waaye waxaana keenay gudadkan oo qoday oo tuubooyinka ku jiraan oo shiina ayaa keenay. hadda marka waxaa dhacday hadda ilmihii oo dhankan jir inay dugsi u gudbi waayaan oo qof qabri loo wada la gudbin waaye. dhibkaas ayaa dhacay. marka dawladdu waxaan ka codsanaynaa gudadkan inay naga duugto sida ugu dhaqso badan yaan ka rajaynaa insha Allah Ilaahay diira. galabta meeshaan waxaa ku dhacay cunug ayaa ku dhacay 10kii saac markay ahayd. garabkaanay biyaha ay buuxaan garabkaan biyaha ay buuxaan ku dhacay. waxay ahayd 10 saac oo shab ah. haddana waxaa la soo bixi maartay 12 saac iyo 42 daqiiqo. lagtaanay waxaa weeye 3 cunug ay qabta hadda isroobkan kaliix 2 gabdhood iyo wiil. markii shiinaha la qodayna godkii wuu sii weynaaday musiibaas noo keenay. marka annagii hadda bedelkan shaqaysan lahayn oo maartay maamooyinka suuqa ay aadi lahaayeen ilmihi ay ku noqdeen mashquul. nin walba cunugiisa waardi ka yahay haas ahaatee ilmahan lama celin karo. ilmihiin meesha ay ku baabeen. markaas galabta nafteeda waa galay dharkeedood waa qoyn yahay. askarigan saaxiibkii aan qoriga u dhiibtay oo waan galay. marka saas ay tahay waxaan rabnaa dawladda inay meeshaan ay xirto shiinihii qoday loo yeero ay duugaan oo meeshaan ay shubaan oo kanaalkan hadda biyaha wada meeshaan ay saan ay yeeleen ay naga duugaan oo ilmaha nooga baa ay naga duugaan rabnaa. waa qofkii saddexaad oo meeshan uu ku dhimanayo. midda kale waxaa la rabaa dawladda inay wax dad meeshan ay ka qabato. saacadan hadda aad arkaysiin anigaa meesha ka soo bixiyay wiilka annagoo fara badan. marka waxaa loo baahan yahay dawladda inay meeshan ay shaqo ka qabato oo maxaa la dhihi jiray ay dhisto. oo haddee dawladdii aan doorannay waxba ma jeedno. meel walbo lagtii way wada dilaacday. Chinese-kii balaayo ay wada dhiseen. ilmihiaa ku baaba'ayo dumarkii raggii. dee meeshan dawladda waa inay wax ka qabataa. haddiise wax ka qabanaynin dee kol dambe kulley way soo istaagi doonaan. cid danba kuraasiin doonta ma laha. waa in wax laga qabta meeshan. lillahi wa inna raaji'uun inna lillahi wa inna raaji'uun. galabta meeshaan taagan waa meesha Kamoor. waa maalinta saddexaad. waa marka saddexaad oo biyaha inta ilmaha ku dhacayeen maadaama duqaalkii magaalada kamid ah magacayga maxamed maxamed cabdullaah furdugan ku macdheer jaamaga buuladan Kamoor oo duqaalkan kamid ah dhibaato halkan saaran oo marka saddexaad ay tahay. waa cunug saddexaad oo halkan ku dhacay. magaalada kala xiran dawladda oo sheegay ilaa madaxweynaha Kenya Ruto iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ilaa dawladdan gafana Maxamed Aadan Khaliif iyo dibadkiisa oo shalay halkan imaaday oo taxsiil halkan oo maad gabar halkan dhimatay u imaadeen halkan waa arkeen. xareed macallin Xuseen la yiraahdaa buulin biyaan degannahay. lag meeshaan ilmaha noogu ba'een. hadda waxay sii marayaan 900 afar ay sii marayaan. ilmaha in waa suuqmeen. godkaana noo keen lag oo socon jirtay biina ilmo kuma dhamaanayni. waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh oo hadda imaaday inay wax nooga qabtaan dhibaatadan haysa. sidoo kale shacabkan ayaa wacad ku maray inay sameyn doonaan dibadbax haddii aysan dawladda wax ka qaban khasaaraha ka dhasho lagtan. waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh oo hadda imaaday inay wax nooga qabtaan dhibaatadan haysa. hadday nooga qaban waayaan ilaa dhibka in la ogaado maandhamaan loo kicinaynaa. sisi tunataka hivyo. tumekubaliana waa ka baxay. dhibkaanay una waa dhibna saameeyay. ilmahan iskuul loo furaa. iskuulka ilmahan ku jiraan. biyahana biyo dhamaanay maaha. dawladda waxaan ka codsanay in godka naga duugto. hadday naga duugayna baka guri unka lacag iska gurno unka iska duugno dadweynaha. taas arintay taas way. ku dhajisay intay bood ku dhajisay. boodka inta lagu dhaji. buulada aan jidka aan la mari wal dhahe dadka inta ku nool intay maray. anaka tan maandhamaan ka xigayna haddii kale unka dawladda u soo dadweynaha dawladda u soo anaka lacag iska gurayna. dawlad ma baqabnaba annaka guri lacag waruurneen unka iska duugayn haddii dawlad naga duugi ways. si kastaba ha ahaatee dawladda ismaamulka Mandera ayaa u muuqata mid ka gaabisay wax ka qabashada tugan. 2 maalin ka hor ayay ahayd markii barsaab ku-xigeenka Mandera iyo wakiilka laga soo doortay township ay sheegeen in ay wax ka qabanayaan balse weli kama aysan jawaabin. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim Cabdiqafaar Habi warbaahinta Star
ismaamulka Mandheera.